وأن لا يغشيكين أو ظلمك كسابسا مالي مالمها كمدا صلاة الصبح أنيقو مساجد كتو كذي أو فردية أبارا مركي أهيد لحدي بانين نويمي أما وحبار عنا دقيقة مركاسو حيري رقم بدنين بانو مركا مساجد كدحديسا كفردنا أن إسلايا طبعا واكيرتهين أو تيل بان أوفا فردنا مساجد كان بدنتي سو فردية دبتنا نكي حنا قعد صدي qof dumara oo ka xanuunsanayso ooridiisa aqalka joogta inaanu adkaar iyo quraan ugu soo akhrino aad buu noogu celceliyay war xilligan waa xilligii la kala shaqo tagi lahaa shuruuqii baa la sugayaa waqti waan ugu adag yahay markuu nagu ilxaaxiyay waa iska aqbalna waa tagnay aqalkii baanu tagnay waa guri nusbaloora saddex maqsin iyo suuliye kitchen iyo waxa ka kooban kadinka markaanu ka galnay isagaa naga horreeyey dibaddan yara istaagnay wuxuu yidhi soo gudba dabeetana waa aqalkii saddexdii maqsinkii u horreeyey ee bidixda sidaasay u safan yihiin ayuu yidhi kan soo gala markaasaanu gallay qolka dhexdiisa waxba ma yaallaan wax gogola waxba ma yaallaan laakiin qof dumara baa waxay kada loobtaayoo fadhidaa raarta ama sabarka u dambeeya qolka dee gidaarka kada loobtaayoo sidaa u fadhidaa markaasa waxaan ku yidhi bal daaqadda yara furo si wax loo arko daaqaddii buu furay waa soo galnay qof dumara waxay fadhidaa aqalka halka u dambaysa gidaarka bay kada loobtaayoo dhabarkay ku haysaa gidaarka markaasuu yidhi qoftaa waa xaaskaygii waxaan doonayaa inaad niman yahow bal quraan ku akhrisaan waxba waa ka garan waayey arrinkeeda ilaa xalay xaalkeedu ma wacnayn dabeeta waxaan ku nidhi bal ag fadhiiso oo maryahana u hagaajiyo dee haddii ay lacalla bal dhaqdhaqaaqdo wax iska beddelaan u diyaar garow ilaa adiga ooridaadii tahay inaad si wacan u qabato annagu qaban kari mayne qur-aankii baanu ku bilownay waa ku akhrinay waxoogaa markaanu ku akhrinaynay bay waxay bilowday inay sida bisadda u ciido gabadhii bisad ciyaysa weligaa ma aragta annagii baa yaabnay qur-aan ku akhrinayna qur-aankii baanu joojinay waxaan isni bal hubsada horta ma gabadhan aad qur-aanka ku akhrinaysaan baa sida bisadda u ciyaysa mise bisad baa qolka ku jirta horta waa ku celinay mise sida bisadday u ciyaysaa gabadha qur-aankii baanu ku wadnay ku akhrinay waxay sida bisadda u cidaba oo sidaas marba tidhaahdo sidaa marba tidhaahdo markii dambe caadi bay iska noqotay markay xoogaa kala degtay baan su-aal weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa ku helay xaggee lagaa hayaa sidee tahay waxay tidhi shalay salaaddii duhur ka hor anigoo qadadii reerka u karinaya ayaa halkan waxaa ii saarnaa dheri biyo ah oo aan islahaa aad baasta ku karisid dabeetana anigoo suugadii iyo wixii aan samayn lahaa cadkii jarjaraya ayaa bisadii kadinka ka soo gashay albaabkoo furan dabeetana cadkii yaraayaan islaad qadada ku karisid bay la boodday biyihii baylka ahaa ee baastada aan u diyaariyey ayaa intaan darsaday koob baan ka daba ordayoo kadinkaan ku gaaro waa ku shubay halkaasay ku kogtay bisadii oo naftii kaga baxday markaasaan intii koobka ku hadhsanaydna u raaciyey bay tiri iyadoo caqdaa leh markay sidaa u kogtay bisadii bislaatayna waa tuuray bay tiri markaan ka soo noqday ayaa xanuunkaasi igalay bay tiri ilaa iyo xaalkayguma wacnayn wakhtigaa laga bilaabo ilaa iyo wakhtigaa arrintaasi waxay tusinaysaa qaybihii dulmiga ee muxaadarada ku jiray dulmu alcabdi lilxayawaan qofku inuu xayawaanka dulmiyo khatarta ay leedahay waa sidii nebiga sal allahu alayh wasalam habeenkii maalintii cadceeddu madoobaatay isagoo salaaddii tukinaya dibna u soo gurtay tallaabooyin mixraabka isagoo taagan
horena marka qaarkood uu u tallaabsaday oo uu yidhi naartaa maanta lay tusay weli waxa aan ku arkay wax la mida ma arag sidaasaan dib ugu soo gurtay jannadana waa lay tusay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku arkay naarta gudaheeda qof dumar oo naarta gudaheeda lagu cadaabayo oo ay bisadi cunayso bisadaasoo ay sababteedii ahayd inay xidhay oo biyo iyo baadna aanay siin dabeetana ay xariggii ku baktiday bisadiioo cunaysaan arkay buu yidhi sababtii bisadaasaana lagu cadaabay sidaas marka waxay tusinaysaa in nooc khatara tahay dulmiga xayawaanka la dulmiyo waxaan kaloo aanu goobjoog u ahaa nin askarta ku jira iminka waa dhintay allah u naxariisto wuxuu ku jira qaybaha dembi baarista iyo CID-da nin xoog weynna uu ahaa marka qof la soo qabtoo la keeno dadka kabaha buurhku ku laadi jiray meel alla meeshii uu doono kaga dhufan jiray laadka rag iyo dumarba waa laadaya markaasuu dadka aad u laadi jiray habeenkii dambuu seexday qolo gaadhi ka degtay oo sadcaal dheerna soo gasho aad u daalan ayaa goor galaba laga rogay gaadhigii markaasaa loo tegayo waa lala hadlay war dadkan iska sii daayo baadna waa ka qaadaa dadka waana laaya dadkiibuu marka laad nin odaya buu si xun u laaday markaasuu dhirbaaxana ugu daray odaygii baa dhacay markaasuu odaygii mantagay habeenkii ku laba ahaa buu seexday lugta midig faryarada iyo farta ku xigta dhexdooda fin yar baa ka soo baxay finkii odaygii baa marka wuxuu yidhi iska daaya ilaahay waxaan ka baryayaa lugtaa uu igu laaday ilaahay inaanu mar dambe dib ugu tallaabsan baan ka baryayaa ninkii waxaa dhacday fin yar baa ka soo baxay labada farood dhexdooda waa fin ilaahay wato lugtii baa waxay la ekaatay wuxuuna ilaahay xaalkeeda ogyahay jiif iyo joogba waa ka tegi lugtii waxaa la jaray dhudhunka xagga canqowga ka sarraysaa laga jaray xanuunkii waa joogi waayey waxaa laga jaray lowga agtiisa waa joogi waaye xanuunkii markii saddexaad baa halkaa misigta iyo lugtuu iska galaan misigtii oo dhan baa la saaray lugtii oo dhan baa la saaray gebigeediiba markuu ladnaaday oo intaa ilaahay ugu joojiyey ayuu dee bire iyo waxbuu qaadan jirayoo wuxuu bilaabay inuu birihiina qofka uu afgaran waaye la dhaco cishadii dambea labadii keliyoodna fadhiisteen isagoo dhakhtar loo wadaa naftu ka baxday dulmigoo caaqibadiisu wax sahlan ma aha haddii laga warramo wixii anigu aan ogaa oo arkay keliya haddaan ka sheekeeyo wax sahlan ma aha waxaa dhacday qof dumara ayaa inanay aayo u tahay oo aqalkeeda joogtay ayaa waxay ahayd gabarh aad u fahmad badan aqoonta waxbarashada diiniga iyo maadiga aad u cajab badan ubadkii ay inantu la walaalka ahayd inanta yaree rajada ah rajay ahayd rajo ninkaa dhalay iyadaa ka fahmad iyo aqoon badan islaantii inanta haysay inanta yareed bay la cilowday ee hooyada u ahayd shaqooyinka ugu daran iyo tacabka ugu daran bay u dirtaa waxay noqotay in jaa-isooyinka iyo waxa ugu fiican la siiyo inantan waxbarashooyinka ay si fiican ugu baasto islaantii waxay la cilowday inantii dabeetana iyadaa ka sheekaynaysa anigu afkeeda iiga sheekaysa waxaan ku talagalay bay tiri talow sun ma siisaa mar waxaan isiri bay tiri ma gubtaa iyadoo huruda marba waxbaan ku fekeray bay tiri waxay tiri cishadii dambe waxaan isidhi si yaroo farsamaysan u gub waan la fahmin dabeetana waxay tidhi aqalkaanu ka shaqaynaynaa baan nidhi takfi baa guriga gashay waxaan soomaalidu takfi iyo kutaantay waxay yidhaahdaan biyaynu karinaynaa baanu nidhi biyaa dabkii la saaray dabeetana waanu soo qaadnay aqalkaanu ku saydhsaydhaynaa waa intaan dee dawadan iyo waxaan lagu buufiyey malaha aada loo baran kaale bay tiri igula saydhsaydh aqalka markii ay
dherigii ama shaygii biyuhu ku jireen ayaan wada qaadnay bay tiri la qaad ku idhi markii aan dhulka dhignay ayaan ku sii daayay bay tiri intaa dhumada ah iyo cagay ka gubatay gabadhii dabeetana si arrintu u saamayso baan waxaan sameeyey markiiba mara yaroo halkan ii saarnayd bay tiri waan alla inantii gubatayo waa ku sii mudxiyey bay tiri dabeetana markiiba adigu inantii aad bay labada cagood uga gubatay oo farihii baa soo yara kogayoo dee anna waa ku talagalo waa mudxinayaa bay tiri dhakhtarkaa la geeyey gabadh inantii waa la dhayey mudday shiiftay adigu iska ladnaatay laakiin farihii way yara kogeenoo saasay yara noqdeen qalliin dambe hawlay u baahdeen waxay tidhi inantii 6 bilood baa ka soo wareegtay maantii dambaan umulay dabeetana waxaa la dhigay reerkii neef walqalaa la sameeyey walqashii baa la bislaynaya oo la karinaya 2 neef baa guriga lagu qalay adeegii iyo hablaha ka shaqaynaya aniguna waxaan kula jiraa shaqadan wax kala qabanaya waxay tidhi dheri halkanoo hilibkii ku bislaanayo iyo fuudkii sidaa u karaya unbaan jikada intaan galay bay tiri soo baxay siri intaan wax soo qaatay toobkii aan xidhnaa bay tiri meel u ka daloolay garan maaye meel unbaa dhegtii qabsatay dheriga saa un baan u jeestay bay tiri dherigii oo dhan baa saa igu yimi laga bilaabo gumaarka ilaa intaa baan bislaaday bay tiri 3 sannadood waxay u tiri kharashka igu baxay dabkayga jaga aan lahaa waan iibiyey $12,000 baan siiyey meelo badan oo deegaanka wadamada nagu dhowaa la igeeyey bay tiri dee inantii iska ladnaatoo guursatay iyadii iminka 2 bilood bay ku socotaa waa bislaatay dhaawacima baa gaadhay 2dii xaglood seedihii baa gubtay laguma soo laabmayaan markay soconayso bahalladan taayirada le bay ku socotaayoo saasay ugu soconaysaa ila qofku ma tallaabsan karo xaglihii seedihii baa gubtay marka meel baanu ku kulanno markaasay iiga sheekaysay sababta arrintaasi u gaadhay dhakhtar ka baxsan waddanka maraan tegey baanu ku kulannay annagoo meel fadhinaan iswaraysanay waxay leedahay khatarta ay leedahay weeyaan khatarta ay leedahay dulmiga ama uu leeyahay dadka la dulminayo wax fara badan saxaabada waqtigoodii waa garanaysaan qoftii dumar ahayd ee ninkii saciid ahaa ee 10kii jannada loogu bushaareeyey ka midka ahaa ee islaantu dhulka ay ku qabsatay ee ashtakaysay ee dhulkan anaa iska leh oo amiirulmu'miniinkii la isula tegey markaasuu wuxuu yidhi anigu rasuulka ilaahay anigoo ka maqlay qofkii taaka dhula qaata cunaha loogu duubayaa maalinta aakhiro 7 dhul iyadoo la eg miyaan arrinkaas samaynaya golihii markii lagu kala tago la damcay buu yidhi joog ha tegin ilaahay buu bariyey ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi inuu cimrigeedana dheereeyo indhahana ilaahay tiro dhulkaa ay sheegaysana ilaahay ku dilo waxay odhan jirtay iyadoo indhala siday maalintii dambe iyadoo hagabsanaysa ceel beertii ku yaalla bay ku dhimatay oo ku dhacday halkaasay dam ku tiri dulmigu waa fara badan yahay waqtigan la joogo waxaa ka mid a dadka dhulkooda sida kelmaddaba ku jirtay lagu habsanayo oo la qabsanayo waxaa ka mid a dulmiga guryaha ka dhacaya ayaa ka mid a ninku inuu reerkiisa dulmiyo ama iyadu dulmiso ama caruuraha aqalada jooga ee labada qof ee qoyska midun ka soo jeeda ee la keeno la dulmiyo waxaa ka mid a jiiraanka la dulmiyo waxaa ka mid a shaarka dowladda oo la isu adeegsado oo dadkii lagu dhibaateeyo qofkii isagoo mas-uulah baawarkiisa wax ku dhibaateeyo meelo badan buu gelayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dulmiga iyo daalimiinta labadaba ina ka ilaaliyo aan naga dhigin qur-aanka ilaa 200 oo mawdiic siyaabo kala duwan buu ilaahay dulmiga uga hadlay siyaaq kala duwanna iyagoo ku yimi ilaahay waxaan ka baryaynaa sheekhan inuu kelmadda ka abaalmariyo dulmigana ilaahay ina ka ilaaliyo inaha un baan dhihi lahaa